السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنة الكمر كلا سود دواء مقالكن waxaan rabaa inaan idin kula wadaago doorashooyinkii isla reebka ee gobolka Minnesota ka dhacay maanta oo natiijooyinkii ay soo baxeen. Ilhaan Cumar oo cod aqlabiyada ku guuleysatay markii ugu horeysay oo laba dumar ah oo dhinaca Republicaanka iyo Dimuqraadiyiinta ka kala socda ay gudoomiyaha gobolka November ay ku tartami doonaan kursigii aqalka sanadka oo iyaguna labada haweenka ay isku haysteen oo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Minnesota Peggy Flanagan ay ku soo baxday haweeney kale ay la tartami doonto dhinaca Republicaanka oo Michelle Tafoya la yiraahdo iyadana waan idin la wadaagaya sidoo kalena faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya iyadoo waliba la helayo muuqaaladii qaabkii qarsoodida ah ee madaxweyne Trump uu dalka Turkiga uga soo baxay bishii hore kadib markii shirkii isbahaysiga NATO uga qayb galay cabsi dhinaca amnigana ay soo wajahday oo laga baqay in Iran ay bartilmaameysato diyaaradda madaxweynaha uu saaran yahay haddaba qaabkii ay arintaas u dhacday muuqaalkii ayaan idin la wadaagaya madaxweynaha isagoo diyaaradda koray ka degaya diyaaradda uu saarnaa iyo midda wariyaashu ay saarnaayeen tee Ingiriiska ku horeysayna sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore ay ka dhaceen gobolka Minnesota maanta iyadoo doorashooyinkaasina November cidda tartamaysa ay soo bixi lahayd Ilhaan Cumar markii shanaad ayaa November la filaya in loo doorto kursiga degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka waxaana cod aqlabiyada oo 80% ay uga guuleysatay haweeney la tartamaysay oo la yiraahdo Julia Lee Soomaalidu doorashadan aad ayay u soo baxeen inagoo og waxyaabihii ka dhacay gobolka Minnesota dhamaadkii sanadkii hore ilaa iyo bilihii ugu horeeyay ee sanadkan ee howlgalkii ciidamada ICE ee Operation Metro Surge oo laba qof ay ku dhinteen dad fara badanna oo xitaa kuwa sharci lehna lagu dhibaatay marka Ilhaan Cumar cod aqlabiyada ayay ku soo baxday codkan muddadii 4 mar ee hore ee la dooranayay cod noocan oo kala ma aysan helin oo 80% inay ku soo baxdo markii shanaad ayaa November la filaya in doorashadaasi ay ku soo bixi doonto iyadoo waliba doorashooyinka kale ee sida weyn isha loogu hayay ahayd kursiga aqalka sanadka oo ay banaynayso Senator Tina Smith oo 68 jir ah isla markaana ilaa iyo sanadkii 2018 gobolka Minnesota aqalka sanadka ku matalaysay marka waxa ku tartamayay laba dumar ah oo mid kamid ah ay ku jirtay aqalka wakiilada oo degmada labaad laga soo dooranayay oo la yiraahdo Angie Craig iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka gobolka Minnesota haweeneyda hadda ah ee la yiraahdo Peggy Flanagan waxaana kursigaasi uu kamid ahaa kuraasta lacagta ugu faraha badan dhinaca ololaha doorashada lagu bixiyay waxaana ku soo baxday Peggy Flanagan oo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Minnesota hadda ah waxaana ay la tartami doontaa marka la gaaro November Michelle Tafoya oo Republicana oo iyaduna dhinaceeda isla reebkii dhinaca xisbiga Republicaanka ah ku soo gudubtay sidoo kale kursiga ay banaysay Angie Craig oo looga guuleystay kursiga aqalka sanadka oo ah degmada labaadna waxa ku soo baxay Matt Lillard oo Dimuqraadiya oo isaguna November ku tartami doona kursigaasi dhinaca gudoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale tartan xoogan uu ka jiray dhinaca Republicaanka marka la eego laakiin dhinaca Dimuqraadiyiinta waa la iska ogaa Amy Klobuchar inay ku soo bixi doonto 90% ayay ku soo baxday Amy Klobuchar oo dhinaca Dimuqraadiyiinta laakiin dhinaca Republicaanka ayaa waxa ku tartamayay Lisa Daymouth oo iyadu haweeneyda hadda afayeenka aqalka baarlamaanka gaar ahaan aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota oo Republicana waxaana la tartamayay Mark Lindell oo taageerada madaxweyne Trump haystay isla markaana ninka iska leh kambaniga la yiraahdo MyPillow oo barkimanka iyo waxyaabahaasi iibin jiray marka aad ay isugu dhawaayeen laakiin 45% Lisa Daymouth ayaa ku soo gudubtay waxaana labada haweena markii ugu horeysay ee taariikhda gobolka Minnesota ayaa qof haweenaya gudoomiyaha gobolkaasi ay noqon doontaa maxaa yeelay laba dumar ah oo dhinaca Republicaanka iyo dhinaca Dimuqraadiyiinta ka kala socda ayaa waxay isku soo hareen doorashada gudoomiyaha gobolka marka November la gaaro dhinaca Dimuqraadiyiinta waxa uu tartami doonta Amy Klobuchar oo loo badinayo inay ku guuleyso
guuleysan doonto maadaama gobolkaasi gobol dimuqraadi uu yahay halka sidoo kalena dhinaca Republicanka Lisa Daymath ay u tartamayso marka Republicanku waxay diiradda saarayaan arrimaha immigrationka iyo musuqmaasuqa gobolka Minnesota laakiin Soomaalidu waa ay cadeeyeen doorashadii maanta dhacday sida ay isbedel ay ugu sameyn karaan natiijada doorashada ee gobolka Minnesota walow tiro yar ay ka yihiin haddana magaalooyinka ay ku badan yihiin si aadah ayay uga codayeen marka natiijooyinkii ugu dambeeyay sidaasi ayay noqdeen in laba dumar ahna kursiga aqalka sanadka ay isku soo hareen laba dumar ahna gudoomiyaha gobolka tartankiisa ay isku soo hareen marka waxaa la filayaa November in sidoo kalena doorashooyin xiiso leh ay dhici doonaan gobolka Wisconsin oo kale sidoo kale doorashooyin ayaa ka jiray laakiin aad ayaa la isugu dhow yahay dhinaca dimuqraadiyiinta gudoomiyaha gobolka tartanka walow dhinaca Republicanka uu soo gudbay ninkii isagu u tartamayay oo la yiraahdo Tiffany oo kale magac dumar ayuu wataa marka dhinaca dimuqraadiyiintana aad ayaa la isugu dhow yahay waan arki doonaa sidoo kale natiijada iyaduna ka soo baxdo laakiin muuqaalkii aan idin la wadaagay ee ugu dambeeyay oo la xiriiray madaxweyne Trump qaabkii qarsoodida ahaa ee dalka Turkiga uga soo baxay markii uu dhamaaday shirkii isbahaysiga NATO oo 7 ilaa 8 bisha socday oo magaalada Ankara ka socday ayaa faahfaahinno dheeraad ay ka soo baxayaan madaxweyne Trump waxa la leeyahay diyaaradda Air Force One oo markii hore tii Qatar ay siiyeen intuu isku aamini waayay Ingiriiska loo diray tii kale laga diray oo Air Force One oo markii hore iska bedelay Mareykanka markii halkaasi ay tagtay muuqaalkan sida aad ka arkaysaan oo aan falaaro badan aad arki doontaan madaxweynuhu markii diyaaradda uu galay wariyaashuna ay galeen wariyaasha waa tii lagu amray in daaqadaha ay dejiyaan si banaanka waxa ka socdo aysan u arkin madaxweynaha waxa la leeyahay xitaa diyaaradda kaliya uu raacay oo markii dambe uu ku bedeshay oo ahayd C-32A waxaa la raacay wasiirka gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth xitaa wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda Marco Rubio iyo Scott Bessent waxaa looga tagay diyaaradda wariyaashu ay saarnaayeen marka madaxweyne Trump sida aad arkaysaan marka uu galo diyaaradda Air Force One isla markaana wariyaashu ay galaan uu sii gudbay qaybta dambe ayaa gaariga cuntada loogu keeno diyaaradaha uu ku sugayay marka madaxweynaha wariyaashu waxay u maleynayeen sida muuqaalka aad ka arkaysaan in diyaaradda uu la saaran yahay laakiin albaabka dambe ayuu ka degay sida aad aragtaan gaariga ayaana qaaday waxaana uu gaarigu u geeyay diyaaradda kale oo C-32A oo meel aan ka fogeyn fadhisay sida aad muuqaalka qaybta dambe aad ka arkaysaan diyaaradda Air Force One waxa ay duushay oo cagaha ciidda ay ka qaaday diyaaraddii madaxweynuhu uu raaci lahaa iyadoo weli fadhiso laakiin Ingiriiska waxa la leeyahay waxa ku horeysay diyaaradda Trump uu raacay oo C-32A 9 daqiiqo ayay ka horeysay maadaama ay ka yarayd diyaaraddan Air Force One waa diyaarad weyn oo aad u culus marka maadaama ay ka yarayd waxa la leeyahay 9 daqiiqo ayay ka sii horeysay diyaaradda wariyaasha iyo qaar kamid ah golaha wasiiradu ay saarnaayeen marka 25 daqiiqo kadib markii diyaaraddii Air Force One ay wariyaasha iyo qaar kamid ah golaha wasiirada ay soo degtay ayaa madaxweynaha mar kale dib loo soo saaray diyaaradda Air Force One markii ay soo caga dhigatay 25 daqiiqo kadib ayaana madaxweynuhu uu ka soo degay diyaaradda Air Force One isagoo iska dhigaya in diyaaraddan uu saarnaa isla markaana uu la yimid diyaaraddan mana uusan la imaan oo madaxweynaha qaab qarsoodi ah ayaa howlgalkan waxa waa howlgal ciidamada Secret Service ay ka shaqeeyeen oo qarsoodi ah haddana ku dhawaad bil ka badan ayaa uu soo shaac baxay maalnimadii shalay ahayd iyadoo warbaahinada caalamka iyo kuwa gudahana ay si weyn ay u hadalhayeen marka qorshahaasi waxa uu ahaa qorshe si weyn looga baaraadegay cabsi dowladda Iran laga qabo in madaxweynaha diyaaradda uu saaran yahay ay bartilmaameysato darteed ayaana loo sameeyay marka muuqaalkan ayaa sharaxaya sida aad aragtaan qaabka madaxweynuhu diyaaradda uu u galay kadibna gaarigaasi loogu qaaday diyaaradda kale loogu geeyay markaasi kadib Ingiriiska markii uu tagayna uu iska dhigayba in diyaaraddan uu wariyaasha iyo qaar kamid ah golahiisa wasiirada la saarnaa xitaa lama ogo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda inay ogaayeen qorshahan oo xitaa waxay u muuqataaba in qaar kamid ah golaha wasiirada xitaa laga qariyay in madaxweynuhu uu diyaarad kale ku baxayo oo diyaaraddan Air Force One uusan raacaynin aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi